qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Buuhoodle ayaa maanta ka hadlay colaadda ka aloolsan deegaano ka tirsan gobolka Cayn iyo weliba gobolka Sool waxayna dagaaladaasi ku tilmaameen kuwo isir la dagaalana oo u wado maamulka Somaliland. Maxamed Xaaji Cumar Camey oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Buuhoodle ayaa shir jaraa'id u qabtay warbaahinta kaga hadlay arrintaasi. anigu waxaan u arkaa dagaalkaasi dagaal xun oo ah isir dirir oo dabargoyna oo la doonayo dadkii deganaan jiray dalka inta laga raro dad kale in la dejiyo oo wuxuu ahayn siyaasad iyo dawlad iyo midna ahayn ay tahay dadkii deganaan jiray inta meesha laga raro dad kale oo reer ah oo isir la dejiyo iyagana wax la laayo iyo wax la saaro oo meel loo saaro oo yar oo ka soo haro fiiga ay noqdaan sidaan u arkaa sidaa weeye waxaanad ku garanaysaan inay sidaa tahay magaaladii baa la gubaya eelkii baa la burburinaya dadkii ariyaha la jooga ariga laga guranaya wax kasta oo xun baa lagu samaynayaa oo aan waxba la dhaafaynin waxba marka halkaa dee waxaa kaaga muuqanaysaa aniga aan arkaa inay isir tahay inay dabargoyn tahay inay tahay talo u baahan tahay markay saas oo kale tahayna dee waxay u baahan tahay mar haddii wuxuu isir soo taagaan dabargoyn soo taagaan waxay u tahay cidii ka hortagi lahayde isir ah la dagaalami lahayd sida ay wax u wadaan la wadi lahayd baa loo baahan Maxamed Xaaji Cumar ayaa waxa ugu baaqay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya in aysan ka aamusin arrintan isla markaana ay soo fargeliso gobolkan Cayn ama dhulbahanta waxa ay doonayaan wax weeye Soomaali weyn waxa qolada ka soo horjeeda ee Soomaaliland sheeganaysa inay doonaysaa waxa weeye kala goyn in dalka la kala gooyo calankii buluuga ahaa baanu saa u haynaa iyana calankii buluuga ahaa bay dhulka dhigayaan waxaan la yaabayaa madaxweynaha Soomaaliya ee ku meel gaarka sababta uga hadi waaday ninka calanka gacanta ku hayo ee xabada lala dhacayo la dabar goynayo ee la jarayo ninka calanka dacalka hayo doonayo inuu ku joogsado oo uga aamusan yahay talo masika wax yarba kala ka dhaxeeya ma dambusan dadka kala hayn ma madaxnimada wax ka siiyeen weynimada maxaa ka jira anigu waxaan su'aalayaa madaxweynaha sababta uu uga aamusan yahay ama dawladda federaalkiiba uga aamusan tahay ee arrinta ay u eeganayso ninka calankiisa gacanta uga haya xabada lala dhacayo ay arkayaan ninka la dhacayo calanka tuur oo cidowka isagu rasaasta la dhacayo waxay uga qaban waayeen waxaan codsanayaa in dawladda federaalka iyo madaxweynaha ka soo jawaabaan sidoo kale waxa uu ka hadlay gogol nabadeed oo dhowr jeer uu warbaahinta kaga dhawaaqay madaxweynaha maamulka Somaliland waxaana uu sheegay in gogashaasi aysan ahayn mid xal keeni karta waxaana uu ku baaqay in ciidamada Somaliland ay iskaga baxaan deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn taasina ay keeni karto nabad lagu wada noolaado inta shir dhaqan oo weyn la qabtay kii meegaagla ugu weynaa kii qorlaguda kontonka aan ku tagnay ku xigay kii kalshaale ku xigay kuwa Buuhoodle jireen kuwa ka dambeeyay ay jireen kuwa badan oo ka horeeyay jireen meelaha ilaa maanta wax ka suuroobay ma jiraan wax guulaha laga gaarayna ma jiraan intaas oo xaala oo mid dhaqan iyo mid siyaasadeed iyo mid dagaal mid haddii ay tahayba in la wada hadlo ama nabad laga wada hadlo ama la wada hadlayo anu de waxaan ku talin lahaa bal waa saxe inagu kala qoonsanay isna daweyn weyni wariyaa ina dhexgalayo aynu u diraa ma jamciyada qormaha ka dhaxaysa ma caalamka ma golaha ammaanka ma Afrika ma Soomaali yaa loo dirayaa cid ay dhexgalaysa ina dhex joogaysa inagu haddaynu sunnadna horena u heshiin weynay imkan heshiin meeyni anu waxaan oran lahaa jamciyada qormaha ka dhaxaysa iyo golaha Afrika ammaanka iyo haddii ma iyo Afrika dhexdhexaad ah inoo noqdeen laakiin inagu haddii 20 kaas inoo heshiin weynay oo kii dhaqanka qabanay oo kii dagaalka aragnay oo kii siyaasadda aragnay mid ku guuleysan weynay waxaan leeyahay haleena dhex joogo oo cid gardaran hal qabto hal arko maxamuud lama baahna dhig shiidata iyo dagaal sii socda maxaa leedahay xal baa lagu gaari karaa xaj maxamuud oo soo koobay waxa lagu gaari karaya oo aan qarsoodi lahayn in ciidamada dabargoynta loo soo dirayo ee dalkii qabsanaya ee dadka laynaya maatada ee xoolaha dhacaya inay meelahoodii ay ka soo duuleen ay ku noqdaan oo la joojiyo xabada oo ninka hadalka markuu yiraahdo hadlayaaba hadalka qaarna gogonaya qaarna reebaya oo hadalka israacsado ciidamadiisa la baxo haddii taa la waayo iman mayso nabadgeliyo
لهلي مايو وحبا كل المايان أنا وحن قباتي كل لساني تاتي إبراهيم محمد عبدي أياسنا شركة جرايد كهذا waxaana uu sheegay in xilligan aysan muuqan saasaan nabadeed inta ay ciidamada Soomaaliland ku sugan yihiin deegaanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn nabadda laguma helo baryo nabaddu marba heerka ay joogtaa laga baadi doonaa nabaddu marba caaraduubta iyo rasaasta iyo colaadda ku timaadaa nabaddu marba nabad la raadiyo oo samaan lagu raadiyo ay ku timaadaa sidoo colaadda taala dhulbaan guriga dhulbaantay iyo isaaq dhex taala in aanay ahayn mid caaqibo iyo wada hadal ku dhamaan karta hadalka siilaanya sheegay ee uu leeyahay Google baanu dhignay meediyaha iyo ilaacaduhu ka sii daaya ciidamadiisana amar buu siiyaa wuxuu ku yiraahdaa dhaqaaqa ku socda buu yiraahdaa dagaalama buu yiraahdaa dadka laaya buu yiraahdaa amar hoose oo ayuu fidiyaa oo ku amraa ciidamadiisa haddii ay bahaydankeeda leeyahay caalamkana wuxuu maqashiyaa gobol nabadeed baan u dhigay dhulbaante arrintaasi waa mid aan qaadan karayn waa mid aan la ognahay waa mid aan dadku yeelahay waa mid khiyaano iyo maxaan ku dhahdaa khiyaano iyo maxaan ku dhahdaa wax kale hadalkan odayaasha dhaqanka ee Buuhoodle ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii dambe dagaalo ka socdeen gobolka Cayn xilligan colaadda ay marayso meel aad u sareysa Cadnaan Saalax Maxamed Somalisat TV Buuhoodle